boqor Cismaan oo Maxamed Buurmadow ayaa maanta galinkii dambe soo gaaray degmada Ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag waxaana laga hortagay boqorka duleedka magaalada Ceelafweyn halkaas oo uu salaam sharaf ku siiyay dadweynuhu u taagnaa soo dhaweyntiisa ugu horreyn waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiinta kala duwan ee soo dhaweeyay boqorka waxaana yiraahdeen baana ku soo dhaweynaynaa boqor Cismaan Maxamed boqor waxaanu leenahay ku soo dhawow dadkaagii oo ah xisbiga kulmiye kaana sugayay wixii talo iyo tusaale ah waxaanu ku leenahay boqor dadkaagii soo dhawow ma furan oo ku soo dhaweynaa dadkii dhammaan wax kala leexsan male dhammaan dadku waa kulmiyaanu nahay waxaanu qaadanay ra'yiga soo jeedisay ee ahaa in la taageero xisbiga kulmiye cod kalena la siiyo baanu qaadanay annagoo taageersan xisbiga kulmiye aan leenahay xisbiga kulmiye ha guulaysto boqorkana waa ku soo dhaweynaynaa boqor ku soo dhawow dadkaagii oo kulmiya magaaladaadii waddankaagii wax kala baydhsan iyo wax leexsan iyo wax xusbi kale ku jira iyagoo aan midna lahayn waxaanu soo dhaweynaa haddaan nahay garabka dhalinyarta degmada Ceelafweyn iyo gobolka Sanaagba boqor Cismaan oo Maxamed boqor Buurmadow waxaan leenahay ku soo dhawow gobolkaagii dalkaagii oo ku sugayay maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa boqor Cismaan oo Buurmadow boqor ku shaareynaa dadweynaha gobolka Sanaagba maanta waqtiga in xisbiga kala taageersan ma jirto sidaada walba kula talisay maanta la taladaada diyaar u yihiin adigana gacmo furan baan boqorka ku soo dhaweynaynaa annagoo ah bulshada uu ka soo jeedo boqor Cismaan oo Buurmadow bulshada uu yahay boqorka bulshada uu afkooda ku hadlo annagoo ah waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa annagoo si wada jira u soo wada dhaweynaynaa boqor Cismaan oo Maxamed Buurmadow waxaanu kala bulshada u sheegaynaa annagoo boqorkooda halka uu noo tilmaamay inaanu khaldaba aanu ku gelin halkaas oo ah xisbiga kulmiye gabagabadina waxa halkaas kala hadlay shacabweynaha kala duwan ee soo dhaweeyay boqor Cismaan oo Maxamed Buurmadow isagoona ka warbixiyay ulajeedka safarkiisa maanta waxa farxadii ah inaan joogo aad igu soo dhaweysaan degmada Ceelafweyn iyo gobolka Sanaag iyadoo barito loo dareerayo cod bixintii aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa masaafada aadka u dheer aad igaga hor timaadeen iyo sida aad ugu heelantihiin haddii aanu nahay madax dhaqameedka iyo waayeelka waxgaradka ummadda si aad ugu dhegajilacsanaateen ugu dheganugushihiin hadalkii iyo taageeradii aanu siinay musharax Muuse Biixi Cabdi waxa weeyaan run ahaantii Soomaalidu waxay geela ugu heestaa nimba tacabkii tubay kaamaal maanta Muuse Biixi wuxuu ka maalayaa tacabkii uu gashaday ummadda Somaliland maanta nin ardaa u baahan maaha ardaagiisa hoose nin u baahan maaha waxaan leeyahay natiijada guusha aan ku kalsoonaano annagu waanu haddaanu taageersanahay Muuse Biixi waanu ku kalsoonahay waanuna hambalyeynayna asaan maantii dhaweyd ugaga dhawaaqay Hargeysa Axmed Mursal Askar TV ga caalamka Universal Ceelafweyn